wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee hay'adda FAO ee Soomaaliya isagoo kala hadlay qodobo muhiim ah oo ka mid yihiin sidii xoolaha dhirta iyo daaqa loo horumarin lahaa maadaama bulshada Soomaaliyeed ay boqolkiiba 60 yihiin kuwa ku tiirsan dhaqashada xoolaha. Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Xuseen labada dhinac ay kala saxiixdeen heshiis ku saabsan sidii hay'adda FAO ay kaalin ugu qaadan lahayd tababarsiinta shaqaalaha wasaaradda. waxaan maanta ku faraxsanahay inaan markii ugu horeysay aan xafiiska wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa aan ku soo dhaweyno wakiilka gaarka FAO Serge Tissot oo maaragtay loo soo magacaabay maantana ay tahay markii ugu horeysay uu Soomaaliya yimaado. marka waxaan ka wada hadalnay arrimaha ugu waaweynaa sidii xoolaha iyo maaragtay dhirta iyo daaqa intaba loo horumarin lahaa dalka Soomaaliya qayb weyn ay uga qaadan lahayd FAO oo ah dhawarta maaragtay wasaaradahan gaarka oo arrimaha Somali production sector-ka. marka waan soo dhaweynaynaa waxaan kaloo ay naga kaalmeeyeen oo wada saxiixanay barnaamij yar oo ku saabsan sidii wasaaradda capacity building-keeda iyo tababaradeeda iyo shaqaalaha loo horumarin lahaa. mashruuc yar oo maaragtay ku saabsan arrimahaasna waa iyo howlaha wasaaraddana waa wada saxiixanay. mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa si dhow inaan u wada shaqeyno maadaama ay yihiin xoolaha Soomaaliya lafdhabarta Soomaaliya shacbiga Soomaaliya sidaan ognahay boqolkiiba 60 in ka badan ay yihiin dad xoolo dhaqata 70 ama 80 in ka badan ay xoolaha ay ku tiirsan yihiin. marka dowladda federaalka Soomaaliya oo dardar gelinaysa arrimahaasna waxaan rajaynaynaa inay maaragtay qayb nagala qaataan dowladaha caalamka oo deeq-bixiyaasha ah iyadoo ay nagala shaqeynayaan FAO oo ah maaragtay arrimahan Soomaaliya ugu qaabishan beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga intaba inay ka kaalmayso. kulankan maanta dhaxmaray wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wakiilka cusub ee hay'adda FAO ee Soomaaliya ayaa ku soo ilaaday isafgarad waxaan u imaanayaa iyadoo wasaaradda xanaanada xoolaha ay qorsheynayso in la dhiirigeliyo xoolo dhaqatada Soomaaliyeed. Abdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.